marka anigu inaan wax faa'iidaystaan doonayaa su'aashaasi afartoodaba waa u taallaa 26 June anigu kollayba horta ma jirin Soomaad garan oo maan dhalan hal mid baan rabaa inaan helo marka waxaan maqlaa laba dawladood baa isku darsaday oo la isku daray oo koonfur iyo waqooyi ahayd Somaliland ama waqooyi dhulkan aniga laftiidu ka soo jeedo waxa la yiraahdaa waxaynu xorownay 26 June marka waxaan rabaa in la ii sheego 26 June habeenkii ay ahayd dabcan Hargeysa magaalo madaxdii gobolada waqooyi baa ahayd calankii laga taagay nooca uu ahaa waxa iga shaafiye ma garanaya hadduu kii Soomaaliya ahaa dee wax midoobay ma jirin dee calankii buluuga ahaa calan baanu qaadnay aniga la igu sheekiyey aniga laftaydaaba ku doodi jiray calan baanu sii qaadnay laakiin hadduu kii buluuga noqdo dee wax isku biiray ma jiraan hal wadan u baahayd baanu balay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا واحد يلا محمد بلحن نير الوغاية أنا واحد. لما سؤالات بنا نقول دينا يا سبيشال جروب كان سومالي لنا قدوة ولا لنا يا. سؤال شهرة برسل له حودينا يا بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر وحنوقنا أحمد إسماعيل سمتر مضافر بدل هو ولا لينشري سومالي لنا إنه جوي كرين. haddana wuxuu ololeynayaa in Soomaaliland gooy karto Axmedow maxaa ku bedelay mase laga yaabaa maalmaha kamid oo dambe inaanu maqalno adigoo Soomaali weyn u ololeynaya taas waa su'aasha labaad waqooyi saynu ognahay dad fara badan baa degan iskuma wada raacsana gooniinka haddii aynu eegno Sanaag haddaynu eegno Sool haddaynu eegno Awdal ma raacsana dad yar oo tirsan oo fara ku tirsa mooyaane gooniinka ma raacsana marka ma reer qura ayaa go'aya oo dawlad doonaya inay noqdaan Soomaaliland su'aasha labaad waa ka baxayaan أنا مدبان دوني هنا نراه إذنكو مهتسن أنا ودود بان سوقرتي دود داسو أم بيجي هايب سنت أم بيجي أنا يب سمينا وان سوقرتي ويسور تجلي كري ويدي دود يدي أو بوحدين هالكن صور ديجو سؤالها قار كود بيكجواب لهيد marka waxaan goostay in aan dood halka aan ka qayb galin waayo waxaan soo dhigtay iyo sidaan doonayay inuu soo dhigo way suurta gali kari weyday su'aalaha qaar bay ka jawaabi lahayd marka raali halayga ahaad aniga hadalka intaas ku dhigay أنا وحنا ولا ورقبيل كان يسكدايا أرقب الخاوذ البنك سوتشد هذا نصب كيك برتاح أحمد إسماعيل سمتر وادركي هذانا مركا لقى قره لو عرّا رم بني شيء مركا إلهي إنك عب صدا أنا وحنا وريا السياسيين بودك الدميسي يجا بدها كوكري إلهينا يجو كلا حساب تمايا مركا أنا ثلاثة صوتها إلهي إن أنت تكعب ستان أنا قبيلنا مرة عي إلهي يسدن عن حق هوري حق دم الله قحده عمل كي لله إلا شخصتان لورتي تذكر بدها كفكري يقحوتك عرّا كفكرين نور الله إني قال إن سوت تهريبي كوين هالك فرديا أتكمل تينا تلقين العقبة قرطان السلام عليكم ورحمة الله finally Somaliland waxay wakiil ka tahay dad dhaqan gooniyo leh soo digirmish دوام حي ستوب أنا ودون دايدي ما دميسن dood buu noo abuurayaa maxaa kula culus kolkaas aanu garanaysa doodda loo maamulo unacceptable this is very serious business mayaanu halkaasaan ku dayn raaliga ahaad halkaasaan
waxa weeye cadaaladdu iyo fairnesska oo loo baahan yahay professorada iyo qof walba halkaan taagan inay fahmaan taasoo ah in qofka waqtiga aan siiyo waxa weeye muhiimaddu waxay tahay waxa weeye dood culus baan yes waa bilownay waqti badan bay heli doonaan way ka jawaab doonaan su'aalaha laakiin waa inaan noqdaa qofkan professorka intuu hadlay iyo maxamuud geldoon iyo maxamed ismaaciil waa inuu qof walba hadlaa weeye marka waxa weeye I have a lot of respect for the professor and all of the guests who are here and even you the people who are attending this town hall meeting the most important thing is justice so now marka maahan rudeness maahan halaga raali lahaado is just about waxa waaye cadaaladda markaad waxaan markaa dhex gelaysid waxa weeye waxay u baahan tahay dulqaadkeeda I'm glad inaan handle garayn karo si loogu talagalay hadda waxaanu bilaabanaynaa su'aalaha before su'aalaha intaan bilaabin ka hor waxaa weeye qof walba oo halkan jooga oo waxay haystaan 1 minute ay ku ribaal garaynayaan kadibna su'aalaha ayaan furaynaa xuseen ayaan ku bilaabaya mar labaad salaamu calaykum minidkaygan waxaan kaga yara jawaabayaa hal qodobo muhiima oo walaalkay maxamed ismaaciil uu soo tibiyey oo ah somalilan waa waddan go-ay wax laga wada hadli karana ma aha oo wuxuu yidhi waa matter of fact waxa markaa ku jirta meesha laba waxaa jira facti baa jira waa run midi waxa weeyaan waxaan la idhahdo matter of fact oo waa run oo markuu dadku samaysto dawlad ee uu samaysto lacag ee uu samaysto maxkamado ee uu samaysto dimuqraadiyo waxay u eg yihiin inay dee iyagu ay dawlad yihiin iyagaana is ictiraafa oo waa run weeye laakiin adduunka ayaan ku noolahay oo waxaan nahay xubin ka mida adduunka kuma noolin bermuudo kuma noolin adduunkaan ku noolahay adduunkuna wuxuu ku dhismaa waxaa la idhahdo matter of law taas haddana waxaa soo yaraaca marka dambe umuuro dhowra marka ama aynu jeclaysano ama ayaan la jeclaysana arrinta somalilan waxay ku soo ururaysaa sida ay isugu miisaaman yihiin 4 qodob oo aan soo sheegi doono midi waxa weeye kow in dawladdii Soomaaliyeed ee ka go'day ka hesho ogolaasho waa kow oo attitude kolba sida dawladdaas u aragto ayay ku xidhan tahay ixtiraaf heli kartiin ka waa mid ama marka ha qaataan wacdigayagii iyo ma garanaysa ama si kale iyagu hawdana dawladda Soomaaliyeed waa kow oo ma garas meel laga maramalay laba waxa ku rantaa adduunyada wadamada waaweyn ee danta kale sida wax u arkaan oo haddii aanay cid ku daadihinaynin waligaaba roor ma soconayso Suudaan maxay wax ku heshay Mareykanka daadihinayay iyo ma garanaysaa ta saddexaad waxa weeyaan military balance ka dhaxeeya dawladda go'aysa dawladda kale taasi issue weyn maaha oo Soomaaliya marna kuma soo qaadi karto bi'ada taagan waa laga ilbaxay in Soomaaliya ay ciidan dambe u soo dirto Somaliland waa laga ilbaxay dadka kalena waa inuu ka ilbaxaa maxamed ismaaciil waxyaabo badan bay walaalahay soo sheegeen wixii inay ay gar ah waa in laga garaabaa dalka Somaliland shacbi ahaan iyo dawlad ahaanba wixii ay sheegeen waa in laga garaabaa siiba walaalkay geeldoon haddii in si yaro caadifad oo qabiile ku jirto hadlay anu qabiilana uma hadlayo sidii uu yidhi Xuseen waxaan ahay Somaliland citizen nin wadaniyo Somaliland oo diyaarna oo ah wixii dalka Somaliland u dan ah cidii cabanaysana inaan cabashadooda ka dhageysto oo aan deedna wixii ay ka cabanayaan wax laga la qabto way Somaliland waxay ka go'day oo ay xamar uga soo baxday dulmi baan ayaa nagu dhacay in iyadu dhexdeeda isku dulmidana diyaar uma aha marka horta taasi wixii ka jira waan ka garaabaynaa waana dhamaysanayaan waxaase xusid mudan oo anu aad iyo aad u underline garaynayaa war 5 Soomaaliyeed baynu doonaynay hadday Soomaalinimadu kulligeen inaga daacad tahay ilaa Mandheera ilaa iyo Djibouti ilaa iyo kulligood mid walba aynu ka wada hadallo 5tii sidee baynu isugu keeni karaa Hargeysa iyo Muqdisho isa seegay oo ay meel inay inkaar ka wada kala dhaceen oo dhibaatada maanta ina haysataa ay ka dhalatay dib ha la isugu celiyo waxa weeye xamar baa gubanaysa Hargeysina ha gubato maxamuud geldoon
tan kale oo professorku ka hadlay oo taariikhihii uu soo maray oo soo sheegay oo dhan waa runtiisoo taariikhaha gumaysigu uu adduunka soo mariyey waxyaalo badan oo jira oo jaranjaro la soo maray weeye laakiinse waxaan idiin sheegayaa qur-aanka oo ugu muhiimsan wax adduunka jira qur-aanka oo ugu muhiimsan wax adduunka jira oo dhan naasikh iyo mansuukh buu leeyahay naasikh iyo mansuukh haddii qur-aankii uu leeyahay naasikh iyo mansuukh aad la nasakhay ay jirto wixii gaaladu keentana waa la nasakhay waxay nasakhmeen 1 Julaay 1960 بروفيسور أحمد أوكي سؤالي أيام فرنا لين كلا سوي استايو su-aashayda si gaara waxay ugu socotaa labada brofesor brofesor axmed ismaaciil samatar waxaa dhici karta su-aashan in loo arko mid shakhsiya ruux soomaaliyaan oo koonfur ka yimid waxaan aad u jeclaa hankaagii siyaasiga ahaa waxaan taageersanaa barnaamijkaagii hiil qaran haddii aad ahayd shakhsi reer gabilaya anigu kumaanan arkaynin shakhsi reer waqooyiya waxaan ku arkayey shakhsi soomaaliya han soomaalinimo ku jira isla markaana ka duwan nimanka siyaasadda soomaaliya hadda ku jira oo qayb ka ahaa rejiimkiina haligay waa naqaanaa siilaanyo agaasimihii wasaaraddii qorsheynta qaranka dowladdii militarigu ahaa wasiir buu ka noqday haddana wuxuu leeyahay somalilan baan ahay adiga ka axmed ahaan ummadda soomaaliyeed hankii ay kuu qabtay ma wuxuu soo fariistay qadiyadda somalilan iyo ictiraaf raadinteeda taasi waa mid xuseen waxaan weydiinayaa aqoon-yahanada soomaaliyeed maxay bedel ahoo u hayaan shacbiga soomaaliyeed ma fagaarayaasha iyo dibadahoon inay ka doodaan mise bedel iyo mustaqbal qurux badan ummadda soomaaliyeed ee ku dhibaataysan min gabiley ilaa iyo kismaayo ilaa iyo buur dhuuba ilaa iyo buur hakaba ilaa iyo berbera maxaad u haysaan ummadda soomaaliyeed ilan idinkaa jeelkii wax u bartay ahaa waa ka baxay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وحلي عبد الرزاق أحمد أفرت أقون يهمبو والسلام يا محمد إسماعيل يو أحمد إسماعيل وحن ويدينا يا دولك أي سومالي لان شيغان يسوحا كتشرا مامل كالولي هذا خاتمو وأيدتكي سولستين مركا موحا دونيسان inaad maamulka iyo deegaanada iyo ummadda soo dhan aad inkirtaan oo aad tiraahdaan ma jirto mase barnaamij kale oo aad doonaysaan in lagu la xaalo ayaad haysaan adinku shakhsi ahaan marka dawladda Soomaaliland ba iska badaysaanba waa ma santiin yahay jawaabuna waa badanayaan baan u maleeyaa maax waan ku salaamay marka wareeya maaxow waynu wada leenahay Soomaaliland adiga iyo anigu waynu wada leenahay anigu waxaan ahay nin leh soo wax inoogu badataa inaan Soomaalideena ku jiro marka hore inagu ku heshiin karo sidee baa inoo roon dabeetana umadina horta doodaha laga bilaabaya keentay waa taa weeyaan sidaas horta ugu raalli ahaw ma aha ma garanaysa meesha kale way taas horta waa mid shire khayr ilaahay ku siiyo weer aw shire khayr ilaahay ku siiyo tay qaybteedan ka jawaabayo maxaa haysaan de horta shirow ma naanasanin ilaa laga soo bilaabo kolba aniga iyo ragan kamid ahay ma garanaysaa geeldoon iyo samatar iyo may nasanin sidii wadankan aanu nimid had iyo jeer waxaan ka hal isku day jiray bal inaan helo wax Soomaali wax u qaban kara ururka ugu horeeyay ee Soomaalinimo ka hadla aniga iyo geeldoon iyo rag la mid ah ayaa abuuray Israaciil ayaa loo oran jiray Baybaris baan ku qoray adag Baybaris ee adarka doontada Xuseen Warsmaadad baadaan adarka doontana ma garanaysaa baan ku qoray berigaas hawlo badan baan ka qabanay waan soo dacdinay waa la nala dagaalamay wax baan ku guuleysanay dawladihii meesha ka dhismi jiray laga soo bilaabo Carta Cali Khaliif way marxaati furi doona waan la shaqayn jiray qodbadaha uu ku galay meelo badan ku tagay qaar badan anaga qoray oo ma garanaysaa internet waan basement kayga ayaan ku qori jiray ku shaqayn jiray waan isla soconay sidaasna oo shaqaynay ilaa maantana kamaanan hadhin 2012 dee dastuurka dadkan saxiixay baan ahaa oo ka soo shaqeeyay marka horta kamaanan hadhin laakiin wali waxaan laanahay wax la yiraahdo critical mass baa jira tiro xoog leh inay mar noqoto oo ka xoog roonaata tirada qaska wada ka xoog roonaata taasana wali haynin tan jabinaysan yani Axmed Bergina soo jabisay waxa weeyaan critical mass maanan ku tagin meesha marka hadii la critical mass ka soo abuurayna adigana macaawinan ka rabnaa waxaan rajiin doonaa in hadii la taan abuuro Professor Ahmed next question
haddii aynu reer waqooyi nahay waxyaalaha aynu dhaqanka u lahayn waxaa ka mid ah dood wadaagga dad doodda aada u yaqaana waa ognahay iyada oo marmarka qaarkood dhibaatooyin waaweyni jiraan ergooyinku iyo siday u wada hadli jiraan waynu ognahay gabayada sidaynu isugu geebi jirro haddana gabayo qiimo leh aynu u wada aragno oo aynu waa asset guba waxaan u aqaanaa inay tahay treasure soomaaliyeed dhaqanka soomaaliyeed iyo literatureka soomaaliyeed ay leeyihiin marka waxaynu lahayn dad dood wadaagga iyo dhaqanka sidaa u leh dhibaataa meesha jirta dhibaatada aan kuu sheegayaa waxay tahay jaamac maxamed qaalib nin soomaali ah oo maanta kan siiniyarsan oo ka mudan markay noqoto khibrad iyo sida uu waddanka ugu soo shaqeeyey inuu jiro u malayn maayo jaamac maxamed qaalib waa nin reer hargeysa ka soo jeedaa intuu maanta dhaqaaqo oo uu hargeysa tago khudbad kama jeedin karo oo midnimada soomaali midnimadeeda ugu baaqaya waa unionist in soomaalidu midowdo ayuu aaminsan yahay haddii jaamac maxamed qaalib aanu sidaa hargeysa ka yeeli karayn soomaalidu waxay tiraahdaa hooyadii ka guure aayadii uma negaado anigu xaggee jooga marka shirka kan la leeyahay burco iyabaa laysugu yimi waxoo dhan taasaa naasikh iyo mansuukh baynu ka hadlaynay taasaa wada nasakhaysa midda kaleeto waxaan rabaa inaan runtii walaalkay maxamedna mid buu yaro taabtay waxa weeye anigu mid baan isaga kan sheegayaa nidaamyada qabaliga ah oo waddanka ka jira oo dhan ma aaminsani ma taageersani kuwa qabiilkaygu wado ma taageersani maakhir ma taageersani puntland ma taageersani khaatumo qabiil oo dhan ma taageersani soomaaliya inay qabiil u kala gogodo ma taageersani tribal federalism ma taageersani markaa ninkii ku andacoonaya maxamuud cali geeldoon baa qabyaalad wadow taasu ha ku quusiso horta maax waa runtii inay Somali Republic ayay ahayd Somaliland iyo Soomaaliyana saddexaas kala ahaayeen Somali Republic way burburtay labadaas jira taa waan ku waafaqsanahay qurbajoogii waxaan qabaa inay qurbajoogu hawlo badan qabtaan oo ay ku takhasusaan laakiin hawlaha halkan ka haysta anu Kanadaan ka yimid oo kuwa Kanada naga haysta iyo idinkoo Mareykan haysta kuwa idinka haysta inaad ku takhasustaan baa labada laga qaatay inaad Hargeysa iyo Muqdisho ka shaqaysaan waayo kuwaasi dad baa u jooga inankii Khaatumo ay weydiiyay waan kula qabaa inay Khaatumo waa reer Somaliland haddii ay cabasho qabaan in ay Somaliland daweyso oo ay si nabada ku daweyso oo iyagoo sidii dhaqankii uu sheegay geeldoon ku daweysay inay arintaasi dawado waan kula qabaa aniga iyo adigoo wada socdaan aynu daweyno oo si walaaltinimo aynu ku wada daweyno xamar labadeenaba weyne disho weyne gubtay waxba inooma taalo koowde mar Khaatumo tidhi laakiin marka Khaatumaan ka hadlaya su'aasha adaa lahaa marka waxaan leeyahay charity begins at home markaynu inay Somaliland waxa tabanayso oo dhan aan ka daweeyo ama adigu aad iga daweyso oo insaa u doodno geeldoon sheegay inaynu Hargeysa ka wada doodno inagoo aan cidina ka baqanaynin sharciga ayaan anigu diyaar u ahay taadinay Jaamac Maxamed geeldoon oo tinina waa runtaa waxaan qabaa maanta Somaliland dadka u dhashay oo dhami inay Hargeysa iyagoo xora dooday doonaan ka jeedsadaan waanay gaadhaysaa waanay qabtaa dawladdan maanta Axmed Siyaay madaxda ka yahayna waxba kama qabto qofkii doonayo khayryada tag laakiin midun shacbigu inay ku dakhri maalintii ay 60kii la geynay laa ya garaad wad xasuutabaan maleynaya Allah naxariisto wuxuu yiri isaga yiri waan aynu haysano muddo shacbigii oo dhan laa ya garaad tiyo kale oo basida ayaa taalaban taana ka qaba horta nasiib wanaag ragga meesha fadhiyo oo dhan wareer waqooyi oo maanta nin odhanaya koonfur baa lala doodaya ma jiro waxay caddaynaysaa taasi wax waqooyigii lagu heshiiyey inayna jirin oo la yidhaahdo wax Somaliland ta labaad mar walba waxaan maqlaa British Somaliland waxaan su-aashaan anigu mar walba isweydiiyaa waxay tahay gumaysigii hortii maxaynu ahayn
su-aashaasi waxaan weydiinayaa nimankan soomaali kala goynaya ta labaad 91kii markii dhulka la soo galay dad xoog lagu qabsaday baa jira su-aalna lama weydiiyey ilaa haddana xoog lagu haysto meesha lagu heshiiyey layidhi wax somaliland la yidhahdaanu samaysanaynaa bal nimankan goynayaa ka jawaabaan iyadana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا واحد يا سعيد علي جلدون marka anigu inaan wax faa'iideystaan doonayaa su'aashaasi afartooda waa u taala 26 June anigu kullayba horta ma jirin Soomaad garan oo maan dhalan hal mid un baan rabaa inaan helo marka waxaan maqlaa laba dawladood baa isku darsaday oo la isku daray oo koonfur iyo waqooyi ahayd Somaliland ama waqooyi dhulkan aniga laftiidu ka soo jeedo waxa la yiraahdaa waxaynu xorownay 26 June marka waxaan rabaa in la ii sheego 26 June habeenkii ay ahayd dabcan hargeysa magaalo madaxdii gobolada waqooyi bay ahayd calankii laga taagay nooca uu ahaa waxa iga shaafiye ma garanaya hadduu kii Soomaaliya ahaa de wax midoobay ma jirin de calankii buluuga ahaa calan baanu qaadnay aniga la igu sheekiyay aniga laftayda ku doodi jiray calan baanu sii qaadnay laakiin hadduu kuwii buluuga noqdo dee wax isku biiray ma jiraan hal wadan u baahayd baan u galay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا واحد يلا محمد بلحن نير الوقوي أنا واحد لما سؤالات بنا ويدينا يا سبيشال جروب كان سومالي لاننا قد أول لاينا يا سؤال شهرة بيرسل وحودينا يا بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر وحنوقنا أحمد إسماعيل سمتر مدفر بدل وحول ولا ينشري سومالي لان إنه جوي كرين haddana wuxuu u ololeynayaa in Soomaaliland gooy karto Axmedow maxaa ku bedelay mase laga yaabo maalmaha ka mid oo dambe inaanu maqalno adigoo Soomaali weyn u ololeynaya taas waa su'aasha labaad waqooyi saynu ognahay dad fara badan baa degan iskuma wada raacsana gooniinka haddii aynu eegno Sanaag haddaynu eegno Sool haddaynu eegno Awdal ma raacsana dad yar oo tirsan oo fara ku tirsan mooyaane gooniinka ma raacsana marka ma reer qura ayaa go'aya oo dawlad doonaya inay noqdaan Soomaaliland su'aasha labaad waa ka baxaya أنا مدبان دوني هنا نراه إذنكو مهتسن أنا ضد بان سوقرتي ضد أسو أم بيجي هايب سنت أم بيجي أنا يب سمينا وان سوقرتي ويسور تجلي كري ويدي ضد يدي أو بوحدين هالكن صار ديجو سؤالها قار كود بيكجواب لهيد marka waxaan goostay in aan dood halka aan ka qayb galin waayo waxaan soo dhigtay iyo sidaan doonayay inuu soo dhigo way suurta gali kari weeday su'aalaha qaar bay ka jawaabi lahayd marka raali halayga ahaada aniga hadalka intaas ku dhigay أنا وحنا ولا ورقبيل كان إسكدايا أرقب الخاوض البنك سوتشد هذا نصب كيك برتاح أحمد إسماعيل سمتر وادرك هذانا مركا لا جر هلو عرّا رم بني شيء مركا إلهي إنك عب صدا أنا وحنا وريا السياسيين بودك الدميسي يجا بدها كوكري إلهي نيجو كلا حساب تمايا مركا أنا ثلاثة صوتها إلهي إن أنت تكعب ستان أنا قبيلنا مرعي إلهي يسدن عن حق هوري حق دم الله قحده عمل كي لله إلا شقستان لورتي تذكر بدها كفكري قحوتك عرّا كفكرين نور الله إني قال الناس تهريبي كوين هالك فرديا أتكلم تينا تلقين العقبات وقرطان السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا أخيارتي سكوتي من هالكم والسلام يا عادي أدوان السلام يا سؤال شيء ده حكوا سعوتها جلدون ودقاء يرف وحد سوق عادي مركي يقول رئيس واحد كبلودي تعصيبات كبلودي تعصيب أنا دات صوماليات أي دات صوماليات لاي وحنا كده عادي ميل
aan xad ahayn laakiinse adigu aad u malaynaysid inay xad tahay iyo kind of aad tidhi maxay tahay xadka maba aqoonsani yacni xuduuddaba gebigeedaba waa kasoo horjeedaa baad tidhi soo markaa dadkana waxay ku dhinteen xadka soomaaliya ayay ku dhinteen okay allahu akbar waxa weeye waa laga adimay aniga hadalkaygii waxa weeye soomaaliya way isdishay soomaalidu markay isdishayna nin waliba meeshiisii ayuu xaadxaadhay adigu sanaag baad ka soo jeedaa sanaag rag baa xaadxaadhay nabadeeyey oo maxay ahaytoy nabadda ay hadda ku noolaanayso geeyey soomaalinimaduna waa everybody oo soomaalihi waa soomaali yaan laga dhigin reer somaliland yaan laga dhigin inaanay soomaali ahayn I am proud inaan soomaali ahay soomaali baan ahay waan ku faanaya somalilandna waan u dhashay laakiinse waan ku faanaya inaan soomaali ahay okay haddaba aniga su-aashaydu waa introduction iyo su-aashaydu waxa weeye waxaan leeyahay hordhacaygu waxa weeye yurub waa tii islaysay waa tii isu timi xadadka lahayd xadka aad diidayso waa la qaadi karaa laakiinse su-aashaydu waxa weeye idinku ma waxaad rabtaan in shacabka ku dhaqan waqooyi sidaad adigu hadalka u dhigtay annaan u dhigo somaliland ma inaad afduubtaan oo aad tidhaahdaan ma jirto waxa ay go-aankoodu yahay miya mise waxa weeye dadkaad ka dhalatay in ay cod ay ku meel mariyaan waxa ay rabaan oo iyagu wada hadlaan aniga waxaa la yidhahdaa jaamac hired asalaamu calaykum horta aad baan idiin salaamayaa su-aashaydu magacaygu waa muxidiin su-aashaydu waxay ku socotaa profesor xuseen axmed warsame nageeye waxaan ku weydiin lahaa professor somaliland marka laga hadlo ama ictiraafkeega madaxweynihii ugu raadinta badnaa ictiraafkeeda wuxuu ahaa madaxweynihii dimuqraadiyadda somaliland mudane daahir yaal kaahin albaab kasta oo madaxweynahaasi galo dad reer somaliland ah baa ka dabagelayay ama booramaha ka soo jeedaan ama burcaha ka soo jeedaan ama hargeysaha ka soo jeedaan in muddo aad daba socday ka soo horjeeday aqoonsiga somaliland dad badan oo ka soo horjeeday oo mutacalimiina brofeseera ah ayaa hadda somaliland madaxweyne siinaayo hoos fadhiya oo ka soo noqday fikradaadii maxaa ku kala duwantihiin siyaasiyiintaas asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waxaa la dhaha cabdicasiis horta mid comment baan bixinaya marka ugu horeysa oo ah dad doodaad soo qabato waad ku mahadsan tahay laakiin dad waxaad u qabatay somaliland inay iyagu gudahooda ka doodaan su-aasha markaa dadka koonfur ka yimid ee southern somalia ka yimid ee soo istaagaya ee ka odhanaya su-aal kama habboona oon kumana habboona inay meesha ka idhaahdaan because waa internal sidaad u sheegteen in discussion laga sameeyo oo laga wada doodo professorkuna wuxuu sheegay inay ama somaliland ama waqooyi dhaho inay dadku dad wanaagsan ahaayeen sheekh xamar markii la tegay xaasidnimadii lasoo wada barta soo maad gareen soo markaa iminka soomaalidu ta haysataa waa xaasidnimo waa ku jiqsi xamar waxba iskuma ogola cidna waxba uma ogola soomaalina taasaa baabisay questionkaygu waxa weeyaan haddaba had nimankiinan somaliland ka soo jeegay unionska ah ee u doodaya soomaaliya inay isku timaado weli ma la timaadeen dhaka kale oo ah war muqdisho waxba kama suurtogelayaane soomaali weynimadan aan wadaan hargeysa ka bilaabo soomaali hargeysa keena weli ma ka fakertee su-aashayda waa taa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat kolley dadka hadlayaana ugu daayar baan malaynayaa marka waxaan niga codsanayaa oo ninka wariyahana aan ka codsanayaa ama hawsha soo qabaabiyey cabdikariin cumar xuseen marka adigana waxaan kaa codsanaya waa su-aasheeda waan ka hadlayaa
hadalka aan ku leeyahay inaad ka jirto maaha halkaas muddooyin badan oo aan duubno laga jaray baan aragnay haddaad ilaahay taqaano haddii kale kuwa kalena wada saar marka anigu su-aal ma qabe talaan wataa ninka ka ra'yi duwan dadkaasaan ahay anu ninka ugu daayar baan ahay intaa halkaa fadhida waa wada qabiil nin walba qabiilkiisa in laga hadluu jecel yahay laakiin iyaa ka hadlay dhallinyartii sideedoo kale ahaay soo tahriibtay badaha ku soo guftay nin ka hadlay miyuu jiraa nin walba hadduu ilaahiisa xusayo cibaadaysanayo anu waxaan odhan lahaa war qabiilkan iska daaya anu gobolka awdal baan ka soo jeeda haddad nasabkayga bartan axmed ismaaciil samatar waa adeerkay haddana marka laga gar helo u cararaa run baan nii sheegaya marka ilaahina ka cabsada anu waxaan odhanayaa siyaasiyiin baa waddanka dumisay iyagaa badaha ku guray ilaahayna iyagu kala xisaabtamaya marka anu taladaasaan wataa ilaahayna intaad ka cabsataan anuu qabiilnay ma raacay ilaahay iyo sida nacnaca xagga hore xagga dambe laga xidhay waxaan camalka ilaahay la shaqaystaan loo hortay dadka badaha ka fikiraya qaxootiga cararaya ka fikiraya noorin la inigaana na soo tahriibiyay kuwiina halka fadhiya aad ka mid tihiin oo tulkiin lacag baad u gurtaan salaamu calaykum waraxmatullahi waxaan siinayaa speakerada inay su'aalena ka jawaabaan soona qatimaan markaas aynu dhamaanaysaa waana mahadsantihiin waxaa ugu horreyn doona maxamuud galdoon waxaan rabaa labada mudane cabdulcasiis jaamac hiirad baan u malanayaa hiirad iyo waxaan malanayaa cabdulcasiis jaamac labadaas su-aalahoodii aan runtii rabo inaan jawaabtiisu geeyo waa anigii ka hadlay tan nabadaynta iyo siyaasaddu weligeed baynu nabadaynta lahaan jiray waqooyi oo nabadda ka dhaliyey waqooyi haddana nabadda wada oo haya meelay joogaanba ilaa ka ugu baryaya ilaa ka ugu galbeedaya way ku wada ammaanan yihiin taas waa xagga ma aan horan xuduudda markii aan ka hadlaayo aan tacsida sheegayey aan ka tacsiyadeynayay dadkii qoysaskii iyo qaraabadii laga laayay dhallinyaradii waa maalmihii dhowto la laayay ma aan oran xuduudda ma ictiraafsani inaan ictiraafsanahay een kale idinma sheegin kana hadli maayo mawduucaynu iminka hadalhayno ma aha laakiinse waxaan ka hadlayay meesha ay runtii arrintu ka dhacday aafadu ka dhacdayna aniga taa la igaga aqoon leh waxaan u malaynayaa inay gudaha shishe tahay oo dhinaca etoobiya tahay inay dhinaca soomaaliya tahay inay labadaba tahay ilaah baa iga og laakiinse waxaan ogahay in tacaddi weyn lagula kacay dhallinyaro soomaaliyeed oo weliba meydkoodii lasoo safay oo lasoo sawiray oo ay tahay arrintaas oo kale soomaali oo dhan haddii aynu nahay inaynu ka gelgelanno absolutely qof hadduu soo qaato ninka soo qaata dress ethiopian uniform ethiopian waa ethiopian dad soomaaliya hadduu laayo dadkaas soomaaliyeed waa inay qabiilkay doonaan ba ha noqdeen ama xarshin ha lagu laayo ama hiiraan aageeda ha lagu laayo waa inaynu mowqif iska wada taagnaa haddaynu soomaali naho dareen nagu hadhay taasi taa wey tan kale waxa weeyaan walaalow weliba khaasatan waxa weeya jaamac hiirad waxba isla waayi mayno haddii aynu dhulka isugu nimaadno nin cirka maraya oo cirka isla maraya iyo nin dhulka cagaha ku hayaa ma wada hadli karaan horta marka hore aynu isu soo degno aynu dhulka isugu nimaadno cagaha ku wada qabanno there will be possibilities ka furfurmi kara ma garan karno laakiin waa inaynu dood furaa waa inaynu wada hadal furaa waa inaynu isu laab furaanaa yaynaan